weli Juba TV ayaad inagala socotaan anigoo durdurahayaana idin waramaya ee markan akhbaaraadka dibadda. dad careysan ayaa gabi ahaanba waxay la wareegeen xarunta madaxtooyada dalka Ciraaq. Igraan Shire ayaa warkan faahfaahinaysa. ugu yaraan 15 qof ayaa lagu dilay caasimadda dalka Ciraaq ee Baghdad iyadoo 19 qof kalena ay ku dhaawacmeen rabshado ka dhacay halkaas kadib markii uu wadaadka awoodda badan ee Shiicada ee Muqtada al-Sadr uu ku dhawaaqay inuu siyaasadda ka fadhiisanayo arrintaas oo keentay isku dhacyo u dhexeeya taageerayaashiisa iyo kooxaha kale ee siyaasad ahaan iskaga soo horjeedaan. rabshadahan ayaa ka dhacay aagga cagaaran ee sida aadka loo ilaaliyo waxaana taageerayaasha Muqtada al-Sadr ay xoog ku galeen xarunta madaxtooyada dalka Ciraaq iyagoo la wareegay guud ahaan dhismaha xarunta madaxtooyada. muuqaalo lagu baahiyay warbaahinta ayaa muujinaya taageerayaasha wadaadka Muqtada al-Sadr ee la wareegay madaxtooyada oo ku dabaalanayo barkadaha ku yaala xarunta madaxtooyada iyadoo qaar kalena ay ku sugan yihiin guud ahaan dhismaha iyo xafiisyada kale. ciidanka militariga dalka Ciraaq ayaa ku dhawaaqay bandow dalka oo dhan ah laga bilaabo 9:00 barka galabnimo waqtiga dalka Ciraaq iyadoo ciidamada militariga ay ugu baaqeen dibadbaxayaasha inay ka baxaan aagga cagaaran oo xarun u ah ergeyga caalamiga ee ku sugan dalka Ciraaq.